arooskii ugu wanaagsanaa ee caasimadda Luhay waxaan u madcelinaa saaxiibadii social media oo dhammaan soo wada dhigay iyo dadkii ka qayb galay waxaan halkan jooga Maslaxa Saalax iyo Catoosh Yare Cabdiraxmaan Buubaal labadooda caawa ku akhar galeen magaalada Muqdisho Catoosh Yare caawa guursatay waxaan noqotay qofkii ugu lamaanayaashii ugu horeeyay ayagoo aroos ah la wareysto maxay idinka dhigan caawa waxay naaga dhigan tahay haween farxad leh sidoo kale inta waxaan farxadda caawada qaybsanaynaa taageerayaasheena dal iyo dibadda joogo iyo sidoo kale saaxiibada qaaliga ah ee social media caawa si weyn loogu hadalhaayay sidoo kale arooskana uu noqdo arooskii ugu hadalhaynta badnaa baraha bulshada aad u weyn waa ku faraxsanahay horumarkaasi sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa adiga xasato muqtar gaduudo waalidkii labada qoys sidoo kale inta ehelkii qaraabadii saaxiibadii iyo qof walba oo masab iyo leh qof walba ka soo qayb galay waan u mahadcelinaynaa sidoo kale madaxdii iyagana kaalinta weyn ka qaadato waan u mahadcelinaynaa qof walba caawa guusheena ku faraxsanaa waan u mahadcelinaynaa waxaan rabaa inaan maslaxa su'aal sidoo kale aan weydiiyo maslaxo sidoo kale adigana waxaa noqotay gabadhii ugu horeysay iyadoo aroosad ah la wareysto farxadaada iyo dareenkaaga bal siduu yahay waxaad tihiin lamaanayaashii ugu caansanaa ee social media dadka oo dhan ay soo dhigayeen الحمد لله حاليا دتك سو قيب galay dadka lagu dhiirigeliyo kulliin waa mahadsantiin maadaama waalidiintii dadka shacabka dhan ugu faraxsan yihiin waxaan jeclahay inaa ilaahay oo nasiib uwad khayr qabo waayahay waa sidoo kale dadkana waxaan ka codsaynaa inaan daawanahay inay u soo duceeyaan ducada mararka qaar waa ajiiban tahay hadda la joogo waa 8 saac habeenimo marka xilliga muuqaalkan uu idin soo gaaro waxaa la rabaa inaan commentiga aan ugu soo duceysaan Cabdiraxmaan Buubaal markaad barnaamijyada daadiinaysid inta badan codkaaga kor baad u qaadaa arintaas wax ma ka bedelaysaa maadaama aad guursatay arintaas horta waa arintii baraha bulshada aadka loogu kala kiciyay sidoo kale dadka u baahan inay enerjigooda la kiciyo tusaale ahaan marka wax tawinaysa haddaad waxaas dhaceen haddaad aadid qofku kugu caajisa safiican laakiin meesha wax ka laaga dhiga safiican waxaa jirtay maxamedeyo iyo macruuf comment ay soo dhigeen oo ay leeyihiin maqaayadiisa ninkan isagaa bashidanaya oo isagoo guursanaya bashidana arinta nimankaas maxaa leedahay waa mahadsantihiin nin si u fahan nina si u aragaa la mufad maama Soomaaliya ayaa waxay leedahay meel ka maqnaaw ama ka muuqo dhagax meel lagu ku dhacaa dabaqna meel dheer jiidan ku jiido waa gacmadaalis hadal badan ha ma buuxsho fardal isku haya la iskuma faaniyo ee fagaaraha lagu kala baxa aftahanka magaalada ay u shidan tahay waaye Cabdiraxmaan Buubaal Catoosh Yare ugu dambeyntii maxaa shacabka Soomaaliyeed ka codsanaysaa Maslaxa Saalax ducali aga baahanahay bis haye shacabka inay noo soo duceeyaan ayaan ugu baahanahay aad bay u maasiiyeen kuwaas waxay ahaayeen lamaanayaashii ugu horeeyay ee iyagoo habeenkii koobaad aqalgalkooda xafladiina la joogo waraysi cajiib ah loo qaado maxamed celina kaamirmaanadii iyo tiktokleedii iyo youtuberadii saaxiibadeena qaaliga ah arinta ka soo shaqeeyay oo runtii 100% ubad celina guul iyo gobonimo ayaa leenahay waad mahadsantihiin